English vocabularies. English vocabularies. Genocide, eliminate, target, destroyed, human rights abuse, confrontation, ethnic cleansing, contempt, terrified, disaster, displacement, and suspect. af Soomaaliya ku celinayna mar labaad. English vocabularies waa erayo cusub. Number 1, genocide waa xasuuq. Eliminate waa baabi'in. Number 2. Number 3, target waa bartilmaameedsi. Number 4, destroyed waa burburin. Number 5, human right abuse waa xadgudubka xuquuqda bini'aadamka, qofka lagu xadgudbo oo kale. Confrontation iska hor imaad hubaysan, isku dhacyada hubaysan sida dagaalada oo kale. Ethnic cleansing oo number 7 ah. Number 7, ethnic cleansing waxa weeye isir sifayn, in koox ama jinsiyad gaar la bartilmaamsado. Contempt number 8, contempt waa quursi, qofka oo aadan u qirsanayn waxa uu yahay. Terrified argagixin. Disaster masiibo number 10, disaster masiibo. Number 11, displacement waa barakicin. Number 12, suspect waa ka shakin. mar kale aan ku celina. Number 1 waxaan dhahnay genocide xasuuq. Genocide waa eragan xasuuq. Eliminate baabi'in ama tirtirid. Number 3, target bartilmaameedsi. Number 4, destroyed burburin. Number 5, human right abuse ku xadgudubka xuquuqda aadamaha. Number 6, confrontation waa iska hor imaad hubaysan baan dhahaynaa, sida kooxaha ama dowladaha isku dhac hubaysan oo xabad laysu adeegsanayo. 7 waxaan dhahaynaa ethnic cleansing. tusaale waxaan u qaadan karnaa waxa hadda Gaza ka socda oo kale ama Falastiin, waa isir sifayn, dad isir ahaan loo beegsanayo. Contempt number 8 waxa weeye quursi. tusaale qof aqoon leh ma qirsanid aqoontiisa, ama qof awoodoosa kaa dhicin kara laakiin ma aaminsanid, ama waa quursi sida qabaa'ilada qaar lagu sameeyo kale. Number 9, terrified waxa weeye argagixin, ama hub adeegso ama aaliyad kale adeegso, waa argagixin. Number 10 waxaan dhahaynaa disaster masiibo, sida fatahaadaha, dabka iyo waxyaabaha dhaco iyo cudurrada oo kale. Number 11 oo u dambeeya displacement waa barakicin, dad si qasaba looga barakicinayo dhulkii ay deganayeen. intaasaan ku daynayna. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.